halkani waa maskaxdii dunida. Maskaxdii adduunka mawjadeeda muuqaal maqalaad ku kulantaan maangaratada aqoonta la mashaawirono mana bixin marxaladaha maareynta deristo waxa adiga ka maqan miiraysa talado ruuxii madnuuma intuu muusanaabi laakiri ilkaad ka mudan tahay mudankii taqaano maahirooga tusaalaha mudaniya marwo siman aan kaama joogine hamogaanin ila tali miicaada khayr kale waa maskaxdii adduunke. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. nabada idaa wadayaal dadweynaha qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada iga daawanayo kusoo dhawaada barnaamijkeeni maskaxdii dunida. halkan walaalayaal maanta waxaa ila soo xidhiidhay wiil soomaaliyeed oo walaalkeena oo qurbayaasha ku nool. wiilkaasoo ila qaybsaday dhibaato aada iyo aada u fara badan oo qabsatay. dhibaatadaas oo ka bilaabantay xaaskiisa. wiilkaa sheekadiisu sida tan ayay ku bilaabmaysaa. wuxuu yihi waxaan lahaa xaas iyo carruurtu way yaryar tahay. xaaskayga dhibaatada ugu badan ee ugu xooga badan ee na kala haysata aniga iyo iyada waxay tahay ee ay ka bilaabantay markii u horreysay. dhibaatadu meelunbay ka bilaabantahay. meeshii ay ka bilaabantay waxay ahayd inay telefoonka ku dhegan tahay 24 saacadood telefoonka inay ku dhegan tahay. telefoonkaas oo ay gasho qolo la galo oo ragga iyo dumarku ay isugu yimaadaan oo ay ku noqotay addicted ay ku noqotay balwad ay u noqotay weliba ay ka gaadhay balwadaha xunxun. waxaan ka tagaa buu yidhi iyadoo telefoonka ku dhegan. carruur war uma hayso. ilmuhu waxay cunaan biinu badhar jali bay ismarsadaan ama jabis iyo baradha bay iska burbursadaan. telefoonka ayay ku jirtaa. dirac yaroo shiid oo hareeraha ka jeexan bay qabtaa. nolol maalmeedda kale markaan soo dhameeyo waxaan ahay nin reerkiisa iyo carruurtiisa u xoogsada. nolol maalmeedda kale markaan soo dhameeyo een xaafadda imaado ee habeen ay noqoto halkan ka relax garayn lahaa weli telefoonkii bay ku dhegantay. xaaskaygu markaa waxay gabtay maxaanku idhahdaayey labada ruux ee isqaba ayay gabtay hawshoodii. waan la hadlay. waxaan isku dayay buu yidhi inaan telefoonka ka qaado inaan idhahdo waxani wax inoo roon maaha iska daa. waan baadhitaan baan sameeyey buu yidhi markii dambe gabadhi waxba ay akhrisan weyday ee waxba iga maqli weyday. baadhitaan ayaan sameeyey. baadhitaankaasoo ah inaan ka war doono dadka ay la hadasho gabadha markaa wuxuu soo ogaaday inay la hadasho dad layman ku jira oo guruub ah. oo rag iyo dumar isugu dhex jira laakiin nimanku ay u qaadayaan lilalow. markaa wuxuu yihi si gaaban iyo si dheer iyo si qabow iyo si kulul waxaan ugu sheegay inay iska dayso oo iska kala yarayso balwadan. waa balwad buu yihi inay waxaan iska yarayso iska dayso. waa maqli weyda. waxaan isku dayay buu yidhi marka oo aan doonay meesha ciladu ka jirto inaan ogaado inaan kabarad u geliyo aqalka dhexdiisa. sababtay tay hooyo aan carruurteedii ka warhaynin oo ilmihii iyagu isdabarayaan biidhi badhar jali iska marsanayaan. oo wuxuu yidhi anigii ii ilowday inaan xaafadda ku noolahay inuu nin joogo inuu nin ka maqan yahay in yacni dhinac kastaba ha noqotee. kabaradda wuxuu yidhi waxaan ku xidhay telefoonkayga ayaan ku borogaraamiyey. kabaraddan aqalka ugu xidhay. shaqada anigoo jooga meel kastaan marayo haddaan jid marayo haddaan shaqada joogo waxaan kala socdaa halkaasaan kala socdaa wax alla waxay qabanayso. wiilkii markaa wuxuu ogaaday telefoonka in dhibaato badani ay ka jirto.
xaaskiisa dhibaato badan inay telefoonka ka jirto iska fahma inay ka jirto ayaan soo ogaay oo maxay tahay weeye dadkaan waxba fahmaynin maxay tahay weeye waa uuraan lagu dhalaynin oon lagu wallacay wuxuu la xidhiidhay nimanka iskale laymanka ee u sarreeya intuu investigation ku sameeyo laynkii soo helay lambarkii wuxuu yihi xaaskayga waxaan doonayaa lambarkan inaad ka xidhaan oo ka tuurtaan hebel hebel baa la yidhahdaa gabadha lambarkaa wadata ayaan qabaa ka xidha lambarkeedu yaanu idin soo gelin oo qolka soo gelin mid kale soo qaadatay telefoon kale markay nimankii ka xidhaan telefoon kale soo qaadatay oy ku gashay qolkii haddana ilaan dayn mayse sidaan reerka u badbaadiyey saxarakiin ahaan waxaan idhi gabadha telefoonkeeda isii aan la hadlo sababtay tay qoys kale oo inaga burburay iminka tamar iyo taagtoona uma hayno oo reer soomaaliyeed oo dambe u dumar taag uma hayno gabadhii waqti badan ayay iga qaadatay intii aan la hadlay waxay tiri wax kastoo la sheego iyo wax kastaad igula taliso laynkan dayn maaya bay tiri waanan gelayaa mana daynayo gabadhii haba yaraato haba badnaato waqti badan aan geliyay waxay soo rujuucda ayaan waa inankina quustaas ayuu ka taagan yahay waana nin dhalinyaro ah carruurtaana igu haysa buu yihi markii aan arkay arrinka halkay marayso ilmahaasaa igu haya meesha inaan dhex joogo bal dadweynow wiilkan waxaad kula soo talin lahaydeen iyo wuxuu yeeli lahaa bal xagga hoose wixii ilahay idinka fahansiiyo xagga hoose kusoo qora laakiin mid baa jirta naagtu hadday arrimahaa barato lama hayn karo hadday naagtu arrimahaa barato lama hayn karo war waxaan ku leeyahay hadda ka horna waan kula hadlay haddana dhagahaaga fur intaan meesha lagugu xidhin ee lagu kaxaynin ee dhibaato kale ku soo gaadhin naagu way badan yihiine ka tasho hadday soo rujuuci weydo ka tasho ayaan anigu ku leeyahay waa go-aan deg dega sababtay tahay xaaladdu halkay maraysaa baan arkay intaanay askari kuugu wicin ee ku xidhin ee aanu kalarka ku qabanin ee aanu jeelka ku geynin ee aanu mustaqbalkaagu aanu baabi'in dabaqabashaad leedahay ka tasho go-aan deg dega ka qaado oo aan kasoo noqosho lahayn sababtoy tahay waxaa jirtaa meel aan ragga laga marin ayaa jirta sida ugu dhaqsaha badan leh go-aan ka qaado go-aankaad ka qaadatana carruurtaada noloshaada ha ka tegina ilmahaaga nafta duldhig laakiin ka tasho iyada sababtay tay dee mahayn karaysid naag samaynaysa uuraan lagu dhalaynin oo lagu wallacaynin oo adna aad joogtid oo aad life tahay oo aad joogtid xaraam caleyk waa xaraam ha laga fekero dadkan laymanka dadka u furaya ee ragga iyo dumarka isugu yeedhaya ee naagaha xaasaskina ay soo gelayaan inay waxyaabaha noocaasa samaynayaan oo fusuqi waad sii batay fusuqi inuu sii batay inaa lilahi wa inaa ilaahi raajicuun xagaynu ku aragnay waxaan oo kale xagaynu ku aragnay waxaan oo kale tani naag maaha tani naag ma aha naagna ma noqonayso waxa weeyaan waa kuwii fakinka ahaa weeye
yay ku galaafan oo naftaada galaafani raalli ka noqda kelmadaan idhi yay ku galaafan jeel yay kuu taxaadin daba qabasho ayaad leedahay naaga ciidaa ka badan baa adduunyada jooga oo nooc walba leh muslin iyo gaalba leh keligeed ma aha raggii soomaaliyeed alla dulqaad badanaa nimanka soomaaliyeed alla dulqaad badanaa tanoo kale hayaane alla dulqaad badanaa nimanka soomaaliyeed oo sharaf badanaa oo wanaagsana oo karaamaysanaa maxaa ilaahay karaameeyey tanoo kalea loo dul qaadanayaa inta kabarad aqalka loogu dhex xidho waxay doonto ku dhex samaynaysaa niman kale